بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. dhammaan bulshada muslimka ah meel walba oo dunida ka joogtaan iyo gaar ahaan bulshada muslimka ah ee ku nool dhulka Mareykanka, waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak. Ilaahay tabaaraka wa tacaala ramadaankankiisa caafimaad iyo cibaado Allah inuu gaarsiiyo. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadkii inaga dhintay inuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala u naxariisto, inta xanuunsan Allah inuu caafiyo, inta caafimaadka qabta Allah u ziyaadiyo, cibaadada iyo soonka iyo qiyaamka iyo quraan akhriskana Allah inoo fududeeyo. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam markii bisha Ramadaan ay soo gasho wuu u bishaareyn jiray saxaabada. Wuxuu dhihi jiray bishii Ramadaan ee barakaysnayd baa timid, Ilaahay wuu idinku waajibiyey inaad soontaan. Wuxuu dhihi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam albaabadii naarta oo dhan baa la xidhay, kuwii jannadana waa la furay, shayaadiintiina waa la xidhay ama waa la katiinadeeyey. Inaguna bishaaradaasaan la qaybsanaynaa. Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood meeshan ka dhaho. Midda koobaad aynu ka faa'iidaysano, fursadna aanu aragno inuu Ilaahay ina soo gaarsiiyey. Salaadaha aynu jamaaco ku tukanno intaan awoodno, taraawiixaha aynu tukanno insha Allah tacaala, quraan akhriska aynu ku dadaalno, muxaadarooyinka iyo duruusta masaajidda ka socotana aynu ka qayb qaadano. Waxaan rabaa inaan idhaahdo 11 bilood ood shaqaysanaysay wixii aad heli kartay waad heshay. Hadda bishan haddii shaqadaadu ay ku ogolaanayso insha Allah tacaala soo xidho waqtigaagana waxaad gelisaa inaad bisha Ramadaan ka faa'iidaysato. Bishan waa bisha quraanka. Waxaa xusid mudan walaalayaal, waxaa jira dad badan oo baahan oo dhulkeennii jooga si gaar ah iyo kuwa halkan jooga. Wixii Ilaahay ina siiyo dadka waa inaan wax ka siinaa. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray qofkii qof sooman afuriya ajirkiisii oo kale buu leeyahay, ayadoo oo kii soomanaa ajirkiisii aan waxba laga nusqaaminin. Wadankii ha laga warhayo, qaraabada ha la xiriiriyo, wixii la gaarsiin karana ha la gaarsiiyo. Halkan aynu joogno sanadkan xaalku waa adag yahay. Bulshada dhib badan baa soo gaaray. Dad badan oo shaqayn jiray bay shaqadu ka istaagtay. Dhalinyaradii markii hore la siiyey sharciga ay ku shaqaystaan waa kii dagaalka lagu qaaday, kadibna waa kay dhuumashada ay galeen iyo kala cararka. Ay dhibaato badan bay dadka soo gaarsiisay. Saadaradeed dadka ha loo naxariisto, hana la afuriyo dadka. Waxaan rabaa inaan si gaar ah halkan uga sheego masaajidka Iqra magaalada St. Cloud waxaa ka jira maalin kasta afurka ha laga qayb qaato insha Allah tacaala. haddaad maalin dhammaystiran aad u qaadan karto way fiican tahay. haddaad qaadan karin wax ku darso. ugu dambays dhalinyarada, odayaasha, isku daya inaynu masaajidka nimaadno, waqti gelino, ku wada afurno si aynu u muujino muuqaal islaami ah oo aynu halkaas ugu wada wardino. Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu cibaadada inaga aqbalo, bishaan bisheeda inuu barako iyo baraaro inagu gaarsiiyo. ummadda dhibaatada haysata, reer Gaza ay ka mid yihiin, Suudaan ay ka mid yihiin, Soomaaliya ay ka mid yihiin, iyo abaaraha Allah inaga dulqaado. ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan idinka sheego insha Allahu TV-ga Xidig waxaan ka soo dayn doonaa duruus islaami ah, duruusta laga faa'iideysto. runtii TV-gan wuxuu caan ku yahay qiyamka iyo akhlaaqda bulshada. TV-yada ilaaliya ayuu ka mid yahay. waan uga mahadcelinaynaa Maxamed Jaamac iyo Xidig. insha Allah tacaala ha lagu taxnaado, duruustana ha laga faa'iideysto. si gaarana masaajidka Iqra duruus baa ka socon doonta, ha lagu xidhmo iyo masaajideena kaleeto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.